kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada muqbaahiyaha STN waxaana ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno madaxweynaha Puntland Dr. Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi inta uu waraysigan socdo waxaanu wax ka weydiin doonaa safar uu ku tagay dalka Shiinaha sidoo kale qabsashadii ciidamada Puntland ay qabsadeen magaalada qadiimiga ah ee Qandala doorashooyinka iyo sidoo kale abaaraha ka jira guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan Puntland mudane madaxweyne ku soo dhawo STN waa u dhawaadeen soo dhawo barasho wanaagsan aad iyo aad ba maasan tahay haddaan ku horeeyo marka hore shalay gelinkii dambe waxa ay ciidamada Puntland la wareegeen degmada Qandala xeebta saaran oo muddo 40 maalmood ah ay gacanta ugu jirtay kooxda Daesh maxaad nooga sheegi kartaa qabsashada ay Puntland la wareegtay magaaladaas iyo ahmiyadda ay ugu fadhido xilligan dabcan walaal wala socotaan nimankaasi niman muddo waxay ahaayeen dib ku hayay dalka gaar ahaan mandiqada Puntland ugu dambeyntiina waxay qabsadeen magaalada Qandala laakiin waan sheegnay Daesh inaysan haysan karin Qandala horaan u sheegay ugu dhawaaqay sababtoo ah Qandala magaalo muhiim ah weeye magaalo taariikhi ah weeye caasimadii Puntland bay waxay u jirtaa 80 kilomitir marka Daesh wax la mid ah inay dhulkayga qabsadaan oo ay ka taliyaan annagu ilaa inta qof Puntlander uu nool yahay suurtagal ma samana yeelayno marka ciidamada Puntland geesiyaashahi oo isugu jira ciidamada kala duwan ee dalka kuwa birga iyo kuwa baduba shalay ay magaalada dib loo wareegay ka hor waxaa jira dagaal ka horeeyay intaan magaalada la soo gelin sababtoo nimankani dhul badan bay bishii iyo barkaas meesha ay joogeen ay dabcan isku fidiyaan wala socota dad badan baa laga laayay maxaabiis waa la qabtay oo hadda wasaasal la keenay 6 maxbuus sida la ii sheegay qalab badan baa laga qabtay oo mulanayo in loo soo bandhigi doono warbaahinta ama ha ahaadaan qalabkii gaadiidka iyo qalabkii mireyn ku sameyn jireen motooro dawooyin waxaasoo dhan niman ku talagal dalka inay muddo joogaan bay ahaayeen marka runtii waana la jebiyey mana yeelayno hadda saa uga harimayne dabcan waxaa weye ilaa qof inta uu ka joogo dhulkaasi waa in ciidamada operationka uu socdaa operationka waa soconayaa ciidankuna ma tegayaan waa ay joogayaan insha allahu dhulkana waa ilaalinayaan dabcan waxaa u sahlan markii hore qabsho waxay ahayd dhulkaas ciidan badan markii hore mayba joogin sidadaba waana dhul waa garanaysaa Qandala iyo dhul buuraleeyaho oo maaragtay aad cimilhaan dhul adag weeye marka laakiin anagu dowladda Puntland inay difaacdo karaamada iyo sharafta iyo nabadgelyada dalka iyo dadka waa muhiim marka gool bay ahayd waana u hambalyeynaya ciidamada meelkaas ay joogaan laakiin madana madaxweyne ma la isweydiin karaa nimankan waxay meesha ku hayeen gacanta muddo 40 maalmood deegaankuna wuxuu boose u jirtaa qiyaasii 80 kilomitir marka maxaa sababi karaa in muddo intaa la eega ay dawladdu eegato iyagoo waliba halkaas meel istaraatiiji badda saaran ay gacanta ku hayso dhulka markii hore ciidan jooga ma aysan ahayn dhul nabadgelyo ah oo peaceful ah oo dad ku noolna dad dantooda qunsada oo shaqaysta ayaa meesha deganaa ciidan badan ma joogin xogaa yaro bariisa joogay magaalada Qandala dabcan marka taasa u sahashay marka inay magaalada yimaadaan anana waxaan ku talagalay operation hadii la fulinayo waxaa loo baahan yahay inaad ku talagasho operationkaas inuu noqdo mid guuleysta marna ma aanan ka seexan maalina kama aanan jiifin in Qandala shabaab Daesh haysto waxaan ku talagalay ma aysan ahayn laakiin ciidamadu inay diyaar garoobaan ciidan la diyaariyo la diro ciidan xoog leh oo meesha la wareegi kara nabadgelyada sugi kara hayn kara waa garanaysaa waqti iska qaadanaysa mid kale Puntland gacanteedu waa buuxdayo meelo badan oo kale ayaa wax kaga socda colaado iyo shidooyin tiro badan oo ay ka mid tahay galgala oo muddo aan dagaal ka haynay iyo mandiqada kale oo gobolka tirsan xaaladooda aad dhawaan idinku la socoteen marka runtii ciidanku meel ay joogaanba intaasoo cadow ayagu ay dagaalamayaan ay haddana meel walba guul ka keenayaan ciidamada iyadu waa la socotaa marka shabaab waataanu bishii March ee sanadkan xilowka ku dhiganay oo dadna ka laynay boqolaal la dhinteen boqolaal aan qabanay marka Puntland waa isku filan tahay waxa noocaasi kalena inay ku soo degdegayaan u malaynmayo kuwii shalan 10 baan siinay kuwana 10 baa la siiyay kuwa soo socda 10 baan siin doonaa nimankan waxay ku xiran yihiin urur ka dagaalama wadamada Ciraaq iyo Suuriya aad ugu xoogan oo Daesh bay ku xiran yihiin horena waxa dagaalo ugu la jirteen ururka al-shabaab oo galgala ku sugan oo markii hore koonfurta Soomaaliya ka soo wareego dhinaca soo galay xogaha aad ka helaysaan sirdoonkiinu nimankan xagee ka soo galay markii hore Puntland
طبعا waa maaragtay xuduud dhan oo furan weeye ama badna ha noqotee ama bir ha noqotee dabcan waxaan isleenahay qaarkoodna in badan ka mid waxay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya qaar badan waxay ka yimaadeen dhankaas yeman iyo dhulka hadda ay haystaan oo waa la socota iyaga haystay dhulkaas dhul badan oo ka mid ah xuduudaha yani yeman iyo puntland waxaa udhexeeya bad yar baa udhexaysa dad darisa weeye marka dabcan meel kastoo ka yimaadaanba ma aqbalayno inay puntland joogaan inay ka shaqeeyaan inay lug ku yeeshaan dadkeeduna ma ogola shacbigeedu la socotaan meel bay joogaan shacabkaygu ama qandalaha joogaan ama garacad ha joogaane in xagjirnimo iyo shido iyo shaqaaqo iyo shabaab iyo daacish inay puntland ka shaqeeyaan ku noolaadaan ku naalloodaan xukumaan suurtagal maaha dowladdana kama aha shacabkeedana kama aha waa tahay intii uu dagaalku socday waxaa jiray diyaarado duqeynayay deegaanka oo gaar ahaana qandalo dhowr jeer duqeeyey waxaa jiray wadamo shisheeye oo gacan ina ka siinayey qabashada magaalada diyaarado duqeeyey ma jirin meesha la yidhaahdo qandalo marna lama duqeyn waxaa ka howlgalka fuliyeyna waxaa weeye ciidamada daraawiishta puntland noocyadooda kala duwan ama ha noqdaan ciidanka b m b f oo ciidanka badda ama ha noqdaan ciidanka b s f yidhaahdo oo iyana ciidan aad runtii aada u shaqeeya la dagaalama argagixisada dagaalanka gaar ahaan iyagu qaabilsan oo ciidanka daraawiishta ha noqdo iyo dadka deegaanka intuba qayb bay ka qaateen operationka laakiin anagu amisomna nalama joogto ciidamo shayna nalama joogaan waxaan ku tashanay waa awoodayada iyo dhaqaalaha iyaga rasaas baa nala siinin raashin baa nala siinin shidaal baa nala siinin dhar baana nala siinin waxaa hadda lagu daldalayo amisom iyo dhulka intiisa kale ciidan lacag lagu daldalayo puntland ayadaa isku filaatay ayadaan isku tashanaysa ayadaan dhulkeeda difaacaysa hadda muxuu yahay qorshaha ina ka degan labadan gruub qaybna al-shabaab tahay galgala joogto qaybta kalena ay hadda joogaan dhinaca kale ee bariga ee daacish oo laba furin oo xoog la ah maxaa dowladdaada uga qorshaysan ana qorshaysan anagu inaan la dagaalano inta ay dagaal wadaan anana waa la dagaalamayna waa iska celinaynaa dhulka iyagana taaka ka mid inay haystaan ma ogolaanayno zero tolerance eber yani dulqaadashadeedu waxa weye waa eber weeye ma ogolaanayno marna in dhulka iyaga ay xukumaan kana taliyaan sida dadka ay u dhibayaan matalan koonfurtoo kale dee ma ogolaanayno dadka iyaga dowlad ahaan haddaanan waajibkaa de aanan gudan karin maxaa dowlad laga yahay waa gartay hadda inta ku dhaafno arrinta qadala hadda waxaa ka soo noqotay safara ku tagtay waddanka shiinaha dad badan waxay iska weydiinayaan safarkaas xilliga uu ku soo aaday iyo ahmiyadda ay xilligan ugu fadhiday puntland walaal china waa waddan weyn weeye waa waddan dhaqaalo badan haysta waa waddan dhaqaalaha waddanka labaad ee adduunka wey marka maraykan laga reebo dhowaanna aan qiyaasi karnaa inay maraykan garaafi doonaan hadday sida ku socdaan ay kusii socdaan annagu waxaan u baahannahay dhallinyaradayadii waa shaqala adahay boqolkiiba 80 dadkaygu ma shaqeeyaan sababta kaliftay inay aadaan daacish kuwa bira iyo kuwa ashabaab aada iyo kuwa badda isku biimeeya iyo kuwa burcadbeeda noqda iyo kuwa tahriib aada waxaan u baahannahay maalintan idin xasuustaan waxaan ku anagu waxaan rabnaa maalgashi khayraad baanu leenahay xoolaanu leenahay khayraad tira badan oo dabiici aanu leenahay in aanu helo farsamo aan kaga faa'iidaysano dalkayaga maanta 2016 abaar baa waddanka ka jirta abaartaasi waxa ay keentay dadkayga inay biyo la'aan u dhintaan iyo gaajo 2016 adduunka maanta oo teknolojiyada aragtay la gaaray iyo horumarka aragtay la gaaray in dadkayga u dhintaan biyo la'aan soo ceeb ma soo wax laga yani xumaada ma waxa weeye marka waxaan u baahannahay in caqligu shaqeeyo waxaan u baahannahay in farsamo cusub aan la nimaadno maaha gacanta inaan horsanno maalin walba waa inaan ku talagalnaa in dhulkayaga aan maalgashi u helno iyo horumar chinana wadamada arrimahaas aanu la aadino iyo ka mid tahay aniga waxa iga go-an horena waa idinkugu sheegay horumar baan u baahannahay kaabayaasheeda dhaqaalaha inaanu horumarina u baahannahay wadooyinkayga inaanu maalgelina u baahannahay ceelal iyo biyaan u baahnaa dadka iyagu inay helaan shacabka iyagu way istaahilaan saxna maaha xaqna maaha in maanta la yidhaahdo xoolaha waxu dhimanayaan biyo la'aan adeer macaane marka maxaa yihiin waxyaalaha aad ku wada hadasheen oo aad ku soo heshiiseen badan baanu ka wada hadalnay horumar badan waxaan ka wada hadalnay in maalgashi laga suubiyo qaybaha kala duwan khayraadka aanu leenahay nooc kasta ha noqday insha allah waa tahay dalka abaara ka jira saa xustay
dad baana haraad ugu dhintay xoolo badan baana ku leeday waxaa jira dhaliilo jeedinaya dowladda oo la leeyahay dowladda Cabdiweli Maxamed Cali Gaase xilligan jirta way ka gaabisay wax ka qabashada arrimahaas arrintaas maxaa ku jawaab waxa ka jira ma jiraan bishii February hadda waxaan maraynaa December February aan bilowna annagu in adduunka la hadalno oo qeylnaan aan suubino intaasna way hadlaynay imisa jeer baanu qabanay press conference imisa jeer baanu la shirnay beesha caalamka dowladdeedu hadda wax badan bay qabatay biyo dhaamiskii baa socda raashin ururintii baa socota wala socotaan dhawaan waxaan ku dhawaaqnay in dowladuna ay lacag $1 milyan ay gelinayso abaaraha waxaanu la hadalay ganacsatadayadii waxaan la hadalay cudumadayadii lacag ururintii baa socota waxaan la hadalay dhalinyaradayadii ama dadka iyagii joogay qurbaha waxaas dhan waa shaqadii dowladdu ay qabanayso weey waxa ganacsatada isu yeeraya dadka la leeyahay lacag bay balashgaleen ku dhawaaqeen dowladda hormuudkeed ma dhacdeen annaga u yeeran ganacsatadayada annaga engage garan culumadayada dowladdeedii kullu wada shaqeynaya marka ninka yiraahdo waa gaabiye been buu sheegay wax hadda la qabanayna magaca dowladda anagu ma rabno in la yiraahdo 20,000 ay soo dirtay maaragtay xawaarad hebel ayaa dowladdu haynaysaa no waxaan rabnaa in shilinkaasi ama dowlad ha ku deeqdo ama shacab ha ku deeqee in halka doolar oo loogu deeqay dadka abaaruhu gaareen suyahay ay u gaaraan oo loo geeyo midda kale anagu waqti badan waxaan gelinay waan ogeyn abaartani waxa weeye abaarta la yiraahdo waa soo laalaata cyclical dhulkayga waad garanaysaa labadii sanaba abaar baa dhacda marka maalin walba orod baan ku jirnaa taasaa keenta hadda aanu ku dadaalo biyo gelinta ama se in biyo la raadiyo hadda bishii February oon markaan ku dhawaaqayno arrinta iyada ilaa hadda 7 ceel cusub baanu sameynaa dowladda Puntland sameeyay soo gaabina marka anagu imisa ceel baanu dhulka sameynaa ma la socotaan oo dowladdu ay maalgelisay ama hala kaashato hay'ado gaara ama hay'adaheeda dawliga ah ay maalgeliyaan ceelashu u badan anaga hadda suubinay ma fahamtay waana wadna sababta wax weeyaan waan ognahay waa u dignay beesha caalamka waxaan warbaahan waa soo laalaabanaysaa contingency plan yeesha ku talagal yeesha ma isa suubin hadda anagina dayatay oo dowladda waanaanu ka shaqo ka qabanaa marka waxaan qabanaa ilaahay baan la kaashanaynaa waana isku kalsoonahay wax badan waa ka bedelinaa arrimaha la yiraahdo marka nin khabiir oo dhanka ganacsiga ama dhaqaalaha aad ugu takhasusay waa tahay marka laga hadlayo abaaraha oo kale waxyaalaha la dhaho waxbaa looga qaban karaa wax ka mid ah biyo xidhanno in la sameeyo xilliyada roobku da'ayaan si biyihii inta loo qabto xilliga abaarta loo gudbo arrimahaas kale dowladda maxaa waa muhiim waxyaabaha hadda wasaaradda maxaa la yihahdaa deegaanka waxyaaba hadda ay ku mashquulsantahay ka mid tahay waxaan u malanaya hadda 3 biyo xireen ayaa dhowaan la sameynayaayo aad arki doontaan waa muhiim waa run waxaa weye biyuhu waa yimaadaan roobka waana gudbaan waxaan u baahanna waxa la yihahda water catchment programs waxyaabaha biyaha lagu celinayo dadku inay biyaha ka faa'iidaystaan oo la xiro xataa si ayadoon dowlad ahayn si private ah ayaa looga faa'iidaysan karaa oo shacbiga looga faa'iidaysan karaa biyaha in la xiro hadhowtana waqtiga abaarta dadku xataa biyaha ay iibiyaan oo dadku biyo laakiin ay jiraan oo la heli karo marka sababta anagu aan mar walba u leenahay hadda mashruuc waxaan soo mashruucaan ku shaqeynaa waxaa ka mid ah remember dhowr sano ka hor 2 sano ka hor baan waxaan iri jidiyo biyo dadku inay helaan access jid ay maraan biyo ay cabaanna ay helaan inaan waqtiga galino waa waxyaabihii anigu aan always ka hadli jiray ka mid tahay marka qorshaha noogu jirta barnaamijyada noocaas biyo in la helo ama ha laga helo dhulka ama cir ka yimid oo la xir ha noqoto waa gartay haddaan ku dhaafo abaaraha intaas mudane madaxweyne dalka Soomaaliya wuxuu ku jira xilli doorasho waxaa socota xulista xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya tan madaxweynuhuna dhowr jeer bay dib u dhacday maxaa keeni kara baa is leedahay in doorashada madaxweyne muddo intaa la eega dib loo dhigo iyadoo xilligii dhowr jeer loo balansanaana la soo dhaafay doorashada waa dhacaysaa wadan Soomaaliya joognaa xaaladda Ilaahay og yahay marka bil iyo 2 iyo 3 doorashada u dhacday mushkilad ma laha laakiin doorashada waa dhacaysaa xildhibaanadii waa gabagabo dhulka intaas kala ka soo dhamaadeen Puntland dhawaan bay ka dhamaan doontaa isbedel khayr qabaan rajaynaynaa idanka Ilaahay doorashadana ay dhacdo dalkan isbedel ka dhaco oo isbedel u hiiliya dadka isbedel abuura jawi nabadeed dalka ka abuura dalka xoreeya ka saara shabaab iyo shirwadayaal wixii la mida dejiya dalka stability u keena horumar siyaasadeed abuura rajo fiican dadka geliya ayaan rajaynaa insha Allah waan dhici doonta laakiin waxaa jira khilaaf ku salaysan doorashada oo hadda Puntland oo kale waxay ka cabanaysaa waraaq soo baxday xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka
oo xildhibaano ka imaanaya sool iyo sanaag la sheegay in lagu daray somalilan taas oo sababtay markii dambe xataa inaad xulistii xildhibaanada aqalka hoose dhinacina ka imaanaya aad joojisaan arrintaas waxay ku dambeysay khilaafkeedaas arrintaas weli waxaan malanay lama xalin ilaa hadda intaan ogahay gudoomiyaha baarlamaankuna awood uu arrintaa ku samayn karo iyo mandate isaga uu leeyahay hawsha ku saabsan ma jirto waxay ila tahay khalad uu sameeyey weeye kula kufay arrintaa iyada ah haddana kolley madaxweyne ku-xigeenkii puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka xamar bay joogaan arrintaasina u joogaan oo ay kala hadlayaan madaxda qaranka waxaan rajaynaynaa arrintaasi in afgarad ku dhammaato ilaahay idinkii mana suurtagal in la yidhaahdo annaga waa ogolahayo in la yidhaahdo somaliland ku dhawaaqdo tiraahdo sool sanaag iyo cayn naga mid maaha ay yidhaahdaan ha ku dhawaaqaan laakiin inay yidhaahdaan marna ku doodaan somaliland baan nahay oo sool sanaag iyo cayn beelaha degaa naga mid yihiin marna yidhahdaan dir waqooyi baan nahay oo 11 kursi baan naga qaadanayna hadda isma qabato waa inay mid ku toosaan waa gartay dadka qayb waxay leeyihiin professor cabdulle maxamed cali gaas arrinta waraaqaas wax badan buu ka ogaa markii dambe soo baxday iyo kadibna uu aqbalay isagu uu ku qanacsay arrintaas maxaa ka jira adeer se uga aqbali karaa waxa anugu waxaas waa fasiriya weeye mana aqbalayno saxna ma magarat maxaan aqbalayaa imis yar baan ka hadla anugu anoo ka hadlay aad maqasheen tabac weeye waxaas waa gartay hadda shirkii madasha watashi qaran maalintii labaad buu ka socdaa magaalada muqdisho madaxdii way joogaan waxaana laga hadlayaa sidii ugu habboonaan lahayd doorashadu ay ugu dhici lahayd adigu waad ka maqan tahay shirkaas waana markii ugu horreysay shirkaas aad ka maqnaatid maxaa lagu sameeyay dalku dawlad bulay markaan ka maqanay madaxweynaha jooga isa dalka madaxweynaha ka ah dastuur baan leenahay madaxweynuhu shaqo ku maqnaan karaa watagi karaa shaqaduna waa soconaysaa gudoomiyaha baarlamaanka jooga dawladda oo dhan baa joogta anagu ma ahin dawlad marna madaxweynuhu joogana shaqaysa markuu maqan yahay aan shaqaynin waxa weeye madaxweyne mandate baan leenahay dastuur baan leenahay haddaan maqanay madaxweynuhu jooga isaan madaxweynaha dalka waa gartay doorashada dhawaan bay dhici doontaa sida dad badan ay sheegaan hadda ka dhawaajisay laakiin waxaa jira laba garab oo xoog waaweyn oo la yiri waxay ku tartamayaan doorashada Soomaaliya koox uu hogaaminaya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne hadda talada haya iyo koox kale oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shir dhawaan wuxuu ka dhacay magaalada Addis Ababa mid kale wuxuu ka dhacay Nairobi mid kale saddexaad wuxuu ka dhacay Addis Ababa shirarkaas kii koowaad Addis Ababa ka dhacay Dubai Imaaraadka ka dhacay ka qayb gashay waxaan leeyahay dawladda Imaaraadka iyo wadamo kale ayaa waxay wataan siyaasiyiin aad ka mid tahay oo iyagu doonaya inay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud meesha ka saaraan arrimahaas maxaa ka jira ana waa isugu tagnay Dubai arrimaha sheegaysidna anigu warkama hayo waxaan ka hadalnay waxay hawlo kale oo la xiriira nabadeyntii Puntland iyo Galmudug iyo wax lamid ah ayaan arrintaas kaga hadalnay laakiin baan ku sheegayaa shir lagu qabtay Dubai imid lagu qabtay Addis Ababa imid lagu qabtay Nairobi Soomaaliya gudaheeda waxa kama tarayso 235 aqalka hoosa iyo 54 xildhibaan 390 xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ayaa dooranaya gabadha ka timid ceelbuur iyo ninka ka yimid bu'aale dawlad inta banaanka ka timaada oranaysa hebel u cadee adeer ma ay jirto ma fahamtay dadka qofka cod raadinaya inuu ka raadiyaa dadka shacabka Soomaaliya ayaga ay taladu ka go'daa ayaga ha lagu kalsoonaado cid dawlad gaar ah oo cid wax ka dhigi kartaana sidan ma jirtaba laakiin shacabka Soomaalidu waxay aaminsan yihiin in sanad walba doorashada dhacda ay siyaasiyiinta soo baxay maada ay jiraan wadamo wata oo dabada ka riixaya ma kula tahay in Soomaalidu ay u baahan tahay siyaasi wadamo ajnabi ah dabada ka wata oo ku sheegay ama ha ku wataan ama soo ku wadane shacabka Soomaaliya Ilaahay bay ku xiran tahay qofka soo baxaya ma fahamtay dawlad hebel wadatahay waxay tiraysa ma jirto wax dadka ruwaayada dadka lagu maaweeriyaa ma fahamtay wax shaqeeyana ma Soomaaliyana kama shaqeeyaan waxa codeynaya 329 weeye cidii cod rabtaahay ayaga ka raadiso qaabka doonto iyadoo ha uga raadsatay laakiin anigu ma aaminsani dawlad dabadeed ba Soomaaliya dawlad u dhisaysa oo iyadu waxay doonto ka helaysa anigu ma aaminsani cidii aaminsan iyada jirta haddaan soo laabano dhinaca Puntland hadda tan iyo markii lagu magacaabay ballanqaadyada aad samaysay waxa kamid ahayd in Puntland xaaladda ay ku jirto iska bedeli doonto oo horumar badan dalku ku tallaabsan doono waxyaalaha la xasuusto waxa kamid ah in muddo 3 sano ah gudahood dalku uu yeelan 3 airport ballanqaadyada maxaa ka hirgalay wax badan baa hirgalay Puntland maalintan nimid hadda wax badan baa u dhaxeeya airportada sheegayso waa hirgaleen midna waa dhamaaday midna bishan soo socotay January ilaa February dhexdooda dhamaan doona kan kalena waa bilaabi doona insha Allah galkacyo idan kale waqti aan dheerayn
dekedaheedii baanu maal gashanaynaa oo anagoo aan rabnaa inaanu ballaarsano jid baanu dhisayna oo la socotaanoo hadda shalay watii la dahfuray kii wadaagsin oo 56 kilomitir oo jay ah la sameeyey kii waxaa socda ceel daahir iyo ceer gaabo oo hadda 10 kilomitir oo horeeyay la sameeyey kuwa kalena balaa jira anigu ma oran karo maanta in hadda ku waleera maaha iraado hadda idinku mashquuliyo waxaa sameeyey waxbarashada wax badan baa ka socda caafimaadka wax badan baa ka socda intaan joogay hadda inta mashruuc hadda intaan joogay aan wadamada kala hadlay oo ballanqaadina la ka suubiya wax badan ka badan dhulka bur hadda aan Nairobi joogay waxa way marka anagu ugu dambeyntii dalkan waxaan ka rabnaa isbedel waxaan rabnaa Puntland wajiga ay leedahay wajiga ka dambeeyay inay yeelato 2019 maalinta doorashada soo socota ay dhacayso waan arki doontaan waana socdaa horumarku waa socdaa mid nabadgelyo socda mid caafimaad baa socda mid waxbarasho socda mid biyo socda mid jidad baa socda marka Puntland waa hor socotay waana tallaabsatay cidii doonta wax rabtaa sheegto laakiin waa socotaa waa gartay ballanqaadyada waxaa ka mid ahaa mid ku saabsan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Ascaano oo sheegtay inaanay faataxa ku bixin faataxana ku soo laabanayn arintaas ilaa hadda wax isbedel oo muuqda oo dhinaca Puntland ku saabsan wali ma dhicin muxuu yahay qorshe arintada ku aad qorshe waa sidiisii dowladda waqtigeeda ma dhamaan marka dhamaadka doorashada lagu sugayaa maya dowladda waqtigeeda ma dhamaan waa gartay waxyaalihii kale oo ballan qaad waxa kamid ahaa in dalku uu noqon doono hal qof iyo hal cod oo dimuqraadiyadda dhankeeda marka laga hadlayo uu dalku uu sameyn doono arin isbedel noocaas ku saabsan dhawaan guddiga doorashooyinka ayaa la sameeyay baarlamaanka la horgeeyay uu meel mariyay maxay tahay talaabada xigta rabtaa in qaadaan talaabada xigta waxa weeye in hawshaas ay socoto guddiga February horta waxaan dib ugu laabanay doorashooyinka dhacay 2013 waa tii ay xoogaa inaga dhicisoobeen ka bacdi waa tan aan ribal aan wixii khaldamay aan dib u eegno waxa dib loo saxay sharcigii doorashada bishii December ayaan waxaan geynay golaha wasiirada marinay 2015 ka bacdina waxaa la geeyay golaha baarlamaanka way ansixiyeen ka bacdi February 2016 waxaa magacawnay guddigii doorashada dhawaan waxay daafureen shaqada si qaabkay u qabanayaan waxaan rajeynayaa haddii doorashadan hadda wax naga dhexgalay doorashadan Soomaaliya ayaa xoogaa carqalad ugu noqotay annaga iyo deeq bixiyaasha dadka la rabay in hawshan nagala shaqeeyaan marka insha Allah hawshaas way shaqeynaysaa waxaan u dhisnay golayaashii deegaanka oo u ah buddiga oo arrinta iyada ah la waxaan rabnaa inaanu qabanno doorashadii golaha deegaanka oo dadku shacbiga ay codeynayaan sanadka soo socda dhamaadkiisa insha Allah ka bacdina aan u gudubno diyaarintii dadka registration of voters waxa la yiraahdo dadkii la diiwaan geliyo telekoobkii dadka la diiwaan geliyo dadkii civic engagement waxa la yiraahdo dadkii loo tago oo la wacyi geliyo xadeyntii degmooyinka iyo qaabkii loo hawlgeli lahaa shaqooyin badan weeye oo dabcan de xisaab baa lagu gelayaa doorashada sharci xisbiyada waa dhammaystiran yahay marka waxaan rabnaa marka in qaab noocaas ay wax ku hirgalaan waa rajeynayaa marka in doorashada 2019 wax badan ka duwanaato tii 2014 insha Allah gabagabadii mudane madaxweyne waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xilligan doorashada Soomaaliya lagu jiro muxuu yahay aragtidaada ama rajadaada ka qabtid doorasho xalaal ah in ka dhacdo dalka Soomaaliya aadar fiiri anigu mar walba rajada waa fiicanta Soomaaliya sababtoo ah waxaan ogahay meeshan ka nimid iyo hadda meeshan aan joogno meeshan ka nimid waxa weeye dagaal sokeeyo ahli ah qabqable dagaal warlords maxkamado isku sheeg islaamiya shidooyin shabaab wax badan baan soo maray hadda waxaan maray inaan ka doodayno qaabka nooca doorashada guddiga la magacaabay say wax noqonayaan marka qofka bini aadanka yani waxa la yiraahdo taariikhda adduunka marka la eegana waqti yar way waqtigaas isaga ah marka anigu mar walba rajada waa fiican tahay waan rajeynayaa in isbedel yimaado 2016 ka dambeeya 2020 ka sii fiicnaado wiilkayga wiilkiisuna uu ku noolaado nolol ka wanaagsan mid hadda jirta wax badan ka fiican mudan maxay aad baa maasan tahay mudan waxa mahad celina wareysiga gaarka aad siisay aad baa maasan tahay Hadii- waa tahay daawadayaal inta waxaan kusoo gabagabeynaynaa wareyskii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi wareysigan waxaan la socodsiinay anigoo Maxamed Yamani intaanu mar kale dib u kulmi doonana guud ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo